Hoggaanka iyo mustambeedka jaaliyadda Somalilan ee dalka Belgium-ka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Antwerp. Waxay kaga hadleen hawlaha shaqo ee jaaliyadda u yaala iyo munaasabadaha ay ku qaban doonaan oo lagu taageerayo aqoonsiga Somalilan. Geesta kale waxa ay fariin u direen jaaliyadaha Somalilan ee wadamada la jaarka sida Faransiiska, Germany iyo Holland. Waxa kale ay kaga hadleen hawlaha jaaliyadda iyo wixii u qabsoomay. waxaanu halkan soo istaagnay inaanu la hadalno jaaliyadda reer Somaliland ee dalka Belgium iyo dhammaan jaaliyadaha guud ee reer Somaliland ee qaaradda Yurub dhamaantood annagoo insha Allah doonayna laba fariin annaga noo gooniya iyo fariin dhammaan jaaliyadaha reer Somaliland khusaysan aanu kan gudbino dhammaan jaaliyadaha reer Somaliland ee dalka Belgium ka degan waxaanu insha Allah taala ku casuumaynaa si sharaf iyo milgo iyo qiimo leh in 31 bisha koobaad 2026 ay tahay maalintii qarankeenu lahaa maalintii weyneed ee 26 December dalkeena maadaama la aqoonsaday inaynu u dabaaldegno aynu xusno maalinta weyn aynu aqoonsigeennii aynu gacanta ku dhignay waxaanan jecelahay dhammaan jaaliyadda reer Somaliland iyadoo isku duuban oo midaysan halkan waxa joogan odayaashii jaaliyadda dhamaantood inta fadhida halkan iyo inta halkan taaganba in si qurux badan oo midaysan looga soo qayb galo in si qurux badan loo soo labisto in calankii iyo astaantii qaranku lahaa la soo qaato in qof waliba isagoo faraxsan waa yoom farxe ومالنتاسي قروح بدن إن شاء الله تعالى نقلا سوق يبقى دمان جاليد ريب بلجيم يا ريب هولند يا ريب جرماني با انتي نسوي قاعدة كرتي يا ريب فرنسا با دمان تود أيان هو بشاريننا وحكلان هول كان كشاريننا فرين كلوه إن أنو كم مقرنا هاي مدام أنو دقنا هاي حدود تيمي دو يوروب كجالية هان وقدومين اللي نعيق تاجي هاي إن أنو شاعرنا إن أنو عدسي قد بندي أنو دون إن أنو قبنا بنام بح بالعرن وأنو تاجرنا إن شاء الله تعالى مالنتي أقوسك جمهورية الصوماليلاند برنامج حسن دونا نقوم عاصمة دميدو يوروب براسلس حدي لها كديو إن شاء الله تعالى وحن كعسو من الدمان شاليده رئيس سوماليلاند قارة يوروب إن نلحرينه كل قدوميها هنا إن شاء الله إفاد جرين دونا ولا سحري دونا لكن سجودو حنو شيء إنه ومقلنا هاي بلانتي مالنتي بلانتها سي صوب بحذير وقلاشيها نصوه لنا أن نلسو ذاك دونا إن شاء الله تعالى دمان جاليده جود رئيس سوماليلاند قارة يوروب سيود دمان تود ميستريهين waxaynu maanta halkan ku shaacineynaa in ay labadii gudoomiye isku tanaasuleen oo gudoomiye Cumar Jaamac maanta laga bilaabo si rasmi ah uu yahay gudoomiyaha jaaliyadda reer Somaliland ee wadanka Belgium Cumar maanta ma oranayno gudoomiye baa to halka kaga tagimeynay inakana jaaliyad ahaan waxa laynaga rabaa inaynu la shaqeyno gudiyada halkan jooga oo dhamaan matalaya jaaliyadda Somaliland ee halkan degan runtii mas'uuliyadda ayna saaran aynu halkaas soo gaarsiinay inaynu Cumar ku banayna maaha waa inaynu la wadnaa ka dambeeyana sida uu la wadnaa insha Allah kuwa inaga dambeeyay gudiyada noqonayana ay saa loo shaqeeyaan wuxuun bay u badnaan doonaan maanta midnimo iyo wadajir iyo iskaraabtaab iyo wax wada qabsi iyo inaynu wixii khilaafaadaha jira aynu iska dhex saarno hadii Ilaahay ka dhigo inamadaana waynu ugu duceyno insha Allah taala inuu Ilaahay hawsha u fududeeyo waxa kale oo loo baahan yahay midnimada wadanka iyo jaaliyadda halkan joogtay reer Belgium inaynu midnimadeena iyo walaalnimadeena aynu adkayno sheegay ninkii iga horeeyay waxaan joognaa xarunta midowga Yurub waxay ahayd inaynu ahaano jaaliyadaha ugu horeeya ee Yurub laakiin waxaad muddo ugu tabcaansanayna taasina waxa weey khilaafaad badan oo hareeyay iyo isku tanaasulid la'aan laakiin ma sha Allah maanta waa tanaasulku yimi kulansiyo halkan inagoo nabada oo danaheena iyo wanaageena iyo midnimadeena ka shaqeynayna inta ka bacdi waxaan u mahadnaqayaa qof kasta halkan yimi si gaarna waxaan ugu mahadnaqayaa Xuseen Jeex waayo wuxuu mudan yahay bilad bila sharaf mudan yahay indha iska tirimaynay laba group baynu hayn groupkii uu hogaaminayay ayaa tanaasulay iyaga midnimada qaatay iyaga wanaag sameeyay iyaga sharafta iska leh iyaga karaamada iska leh Soomaalidu waxay taadaan la kala roonaan roomado sida awadeed waxaan maanayaa rag kuma jira maanta Barod Cabdullaahi warbaahinta qaranka Benelux